Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeyga Nisa Home Decor. Maanta waxaan sameynayaa sharaxaad aan ugu talagalay miiskeyga qadada maadaama bedelmay yacni bisha hadda aan ku jirno waa bil geedaha caleeman ka daadanayo foolan dhahna anaka Mareykanka marka waxaa fiican gurigaaga kalarada xataa inaad ka bedeshid. waa ujeedaan kalarada hadda aan wato inkastoo kalaradan ay leeyihiin qolada wadanka Marookaanka laakiin Mareykanka waxaan isticmaalnaa markaan bishaan galno insha Allah November. Okay, waxaan wataa sharaxaadahan dhanaan wataa dhalooyinkan aan wataa aan rabaa inaan ka sameeyo sharaxaadahan haddaan rabo inaan sameeyo nooc kala different waaye saddex nooc waxaan rabaa inaan sameeyo waa kana alaabahan dhanaa ii yaala meesha aragtaan waxaan dhan waxaan kasoo wada gaday Dollar Tree-ga marka insha Allah saa iskugu dardaraa idin tusaa. Okay, dhaladan aan ka bilaabaa. Okay, markaan guluuga marinaysid waxaa iska ilaalisaa inuu gudaha kaaga daadinin afka le saas gees yani ugu mari suu bakeeriga kale uu ugu dhago insha Allah. waa gadinaysaa saana u saaraysaa laakiin haddaad dhahdid dhaladan yaraan joojinaa bakeerigaas weyn culeyskan korka saaraa balansiga kaa halaabaa marka mar walba waxaa waa gidinaysaa markaasaa ku dhajinaysaa ujeedaa saana hadda u sameynayo camal u samaysta insha Allah. Okay, waxaa kale hadda sameynaa midkii kale ku xigay insha Allah. waa ujeedaan saa u sameynayo aniga waxaan ka ilaalinaa leh inuu gudaha iiga daadinin guluuga saas u saar si tartiib. Okay, gacanta saar waka saas isku bedelay maasha Allah. haddana waxaan sameynayaa kii kala dheeraa ka ugu dheer waa kaas nisaana yeela guluuga sidii la u marinaa markasta waxaan ka ilaalinaa guluuga inuu gudaha iiga daadin keesaa markaa u saaraysid very easy waaye cabirka xataa ma kaa halaabayo kan. Okay, waxaa hadda idin tusaa markaan shumacyada geliyo suu isku bedelayo insha Allah inkastoo saddex kale ay ii diyaarsan yihiin saddexdana hadda idin tusaa hadhow markaan kulli isku aan sameeyo aan idin tusaa decorationka suu kusoo bixi doono insha Allah. saddexdana waa ka kala dhirir waaye isku dhirir ma ahan maxaa dhalooyinka hoos aa kala dhirir kuwaan kor isku dhirir waaye laakiin kuwa hoos aa kala dhirir Okay, hadda waxaan bilaabaa inaan gashto shumacyadii aan soo gatay waxaan wataa greenka iyo orangeka iyo yellowga aan raba hadda inaan geliyo shumac walbana waxaa waaye caraftiisa gooni waaye isku caraf ma ahan sida yellowga oo kale wuxuu u carfaa sida bocorka oo kale uu carfaa greenka wuxuu carfaa sida olive-ka oo kale uu carfaa orangekana wuxuu carfaa sida qarfaha oo kale marka waxaa waa shumac walba caraftiisa gooni waaye haddaa wada daartid kulli guri aa ku wada daartid caraftaas dhan waa isku dardarsama ma xumaanayo laakiin okay waaye waa ugu talagalay already waa loogu soo talagalay. haddaa rabtidna adaa shumac samaysan kartid wax walba ku darsan kartid kalaro ku darsan kartid guriga dhan wuxuu kuu noqonaa carafta adi aa rabtid laakiin aniga maya waxaa iska isticmaalaa kuwa ayaga ay sameeyeen dukaanka caadiga aan kasoo gatay. Okay, waa aragtaan saddexda xabo saan iskugu dardari soo noqday haddana waxaa idin tusaa midka kale saan raba inaan u sameeyo insha Allah. Okay, midka kale waa kana asigane dhaladan waaye iyo waxaan wataa geedkan la kor saarayo iyo waxaan wataa shumaca markaad soo gadanaysid waxaa ku xiran bacdaas waxaa iska markasta waxaa hubisaa bacdaas inaad ka fiiqdid markaas aa gelisid haddii kale bacdaasoo ku dhagan haddaa gelisid dhalada dhexdiisa oo daartid oo isku hilmaamtid gurigaaga waxaa laga yaabaa inuu dab galo maxaa dabka bacdaas iyo dabka hadday istaabtaan waxaa waaye waxaa ka kacayo dab yacni oo waxaa ka kacayo oo fafaniin badan aa ka kacayo marka waxaa laga yaabaa guriga inuu kaa gubo. Okay, hadda waa ujeedaan dhagaxa dhaladan haddaan saaro baaquliga waa dheeraana haddaan ka dejiyene waa gaabnaana haddaan laba xaba saarana waa dheeraana marka choiceka adaa iskale waa ka soo saarneen haddaa saartid
haddaa laba sii kor saarto waa sii dheeraanaa. marka hadda waxaa idin tusaa saa u saari lahayd, saa u marin lahayd guluuga saas u mari, markaas saas u saar, markaas saartid, markaasaa waxaa gelin ku dhajinaysaa xerigii aan watay. xerigaa waxaan ka furi shumacuu ku xirnaa, marka ma rabin inaan tuuro. dhaladan decoration dhan ma ii saarnay, marka waxaan ku fikray inaan qaado aan dhalada korkiis saaro. shumaca maxaa dhe asoo ku dhagan ma dhexgelin karin dhalada, qurux ma noqonaa. marka waxaan ku wareejinaa hadda dhaladan afkiisaan ku wareejinaa insha allah. laakiin waxaa mar walba iska fiirisaa gluuga iyo dhalada dhexdiis kaaga dhex daadin. maxaa dheh bakeerigan mise baaquliga mise dhalada waxaa saa ku tilmaami lahayd wuxuu u baahan yahay inuu nadiif noqdo. hadduu guluuga gudaha kaaga daato waa laga arkaa. marka waxaad dadaalaysaa adiga saa aad guluugan uu gudaha u kaaga daadin. marka aad marinaysidne si tartiib u mari. maxaa dheh haddii uu leega kaa halaabo qurux ma ku fadhiisanayo, yacni qurux ma noqonayo. markaasaa ugu wareejisidna hadduu soo haro haddaa rabtid waa goon kartaa, haddaa rabtidna waa kusii wareejin kartaa. okay, birtan yaraa uu watay aa ku dhagsanaa, birta ma tuurin. marka waxaan ku fikray inaan gees kaga dhajiyo insha allah hadduu ilaahay nacam dhaho. markaan geeska ugu dhajiyo decorationka waxaan arkay waa sii qurux badnaana. marka maba tuurinbo, waxaan qaadanaa guluugaan marinaa. guluuga markaan mariyo aan ku dhajinaa, gees kaga dhajinaa. waa kaa saasaan u saaraa si tartiib. okay, saasuu noqonaa ujeedaan maasha allah. shumacaan dhex gelinaa hadda. markaan shumaca saas u geliyo okay, intaan kan sameynin waxaa kasii horeeyay labo kale aan sameeyey. marka waa idin tusaa insha allah, kulli idin wada tusaa hadduu ilaahay nacam dhaho suu u noqonayo. waa kana saddexda waa kan sa haddaa idin sheego, haddaa laba isku dhajisiin iyo haddaa hal saartiin dhirarkas u kala different noqonayo. iyo halkii kale ugu gaabnaa haddaa rabtidna waxaa saaranaysaa dhaladaas waa dheeraana, haddaad rabtidne ma saaranaysid. marka ani ma rabi inaan saarto, waxaan rabaa saddexda dhalo inay kala dhirir noqdaan. waa ujeedaa dhulka dhigtid maasha allah saan quruxuu ku noqday. waa ujeedaan suu isku bedelay maasha allah. okay, hadda waxaan kalaan idin tusayaa saddexdaa intaan sameynin kuwa kalaa jira aan soo sameeyey waa diyaariyey. okay, hadda waxaa idin tusayaa flowerkan. flowerada markaa gelinaysa markasta labada gees ka kala bilaab, yacni dhexda kulli ha kuwada daadin. laba saan ana hadda idin tusaayo haddaa u samaystiin flowerka si quruxu u fadhiisanaa. horta koo waxaa loo baahan yahay inaa labada kalar aa ugu talagasho geesaha ka geli, haddana labadaas kale then kan ugu dambeeyo dhexda ka geli. saan u ekaanaa maasha allah. waa ujeedaan quruxdiisa. waxaan wataa 4 cagaar iyo 2 gold oo kale iyo 2 orange, intaasaa ugu soo talagalay. marka kuwa ugu dambeeyay waa kan geesahan ka gelinaa maasha allah. kalarada markay isku imaadaan oo ku dhex quruxda. waa kan saanuu noqday flowerkii. okay, ready, diyaar waayo. haddaa rabtid dhalada waxaad ku shuban kartaa dhagax loogu talagalay mise caro loogu talagalay lagu shubto markaa flowerda sameynaysid meeshaan. haddii aad rabtid waa ku shuban kartaa, haddii kalene muhiim ma aha, ma ku shubanaysid. flowerka waa kanaa saanuu noqday maasha allah. saddexdii dhalana waa kanaa saana usoo diyaariyey. meel allaala meeshaa rabtid aa saaran kartaa, miiska qadada, jikada, musqusha, qolkaaga jiifka, meeshaa rabtid aa saaran kartaa. waa kan saanuu isku bedelay maasha allah, quruxdiisa ujeedaan. okay, flowerkii kale waxaan saaranaya miiska qadada. miiskayga qadada brown waaye. haddii aad maro saaro alaabaha dhan aan sameeyey mala arkaayo, laakiin markuu brown kaligiisa yahay alaabihii dhan waa soo baxayan. maxaa dheh waxaa u badan dhalo, dhaladana waxaa decoration dhan ma lahan, dhalo waxaa waaye oo hal kalar ah. marka saanuu ku qurux badnaanaa ujeedaan. kalarada dhan waa la arkaa, dhalooyinkii waa loo jeedaa, miiska kalarkiisa waa la arkayaa. saanuu ku qurux badan yahay. marka haddii aa qabin waxaa saaran kartaa maro brown aa saaran, hadduu miiskaaga cad yahay maro brown aa saaran kartaa. kuraasta waxaa gashan kartaa marooyin brown ah
soo kalarkii uu usoo baxo aa aragtid quruxdiisa decorationka aa samaysay. marka laaziman ma ahan miiskaaga inuu brown noqdo saa idin sheegay maradaa ka dhigan kartaa dukaanka kasoo gadan kartaa. waa kana asigoo suxuuman soo saaray waxaa idin tusayaa soo kalarka uu iskugu qaadanayo laakiin waxaan kasii jeclaan lahaa more decoration inaan sameeyo laakiin waqtiga igu yar insha allah mar kale decoration kale sameynaa aan idin tusaa miiska waqtiga winterka waqtiga qaboobaha yacni bisha markii la gaaro December mise January aan idin tusaa miiska kalarka suu isku bedelayo waxaa dhe kalarkan ma soconayo waa istaaga waa la bedela haddana waxaa laga dhigaa kalarka winterka. marka insha allah hadduu ilaah nafta noogu simo bisha dambe dhalanayso waxaa sameynayaa kalarka cadka oo sida snowgo kale markuu alaabtaada uu yahay brown saa ku bedeli lahayd aa ugu dhigi lahayd guriga kalarka winterka insha allah. salaamu calaykum.